in ay maleeshiyaadka al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada farakutiriska ay kaga dhuumalaysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose. General Luway Yusuf Raage ayaa u kuurgalay xaaladda ciidamada oo ay ugu horeyso raashinka iyo hoyga ciidamada, soona kormeer indhaindhayn ah ku sameeyay guud ahaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Africom kuwaas oo ku sugnaa deegaanka number 60 isagoona ku amaanay shaqada ay ku guda jiraan. فاطمة بشير تيدا عاشق الشهر قراية فيديوغا وحنو صنع ليسو دعيورت آديات باردي سلام يا دمانتي سودا وهذا فيديو شهر قراية ويسوعي قلنا وحما يسكو شيغينا هدان حنوصانا حتى وايد لقيب سنايا وحوايا ودن كيغا هورو مركيسة ومقدس آديات بان ام بهاركو سلام يا سلام سري امل آديات بانكو سلام يا سعيد علي بدل آديات باكو سلامة يا إلهي أكو عفيو أنا قردن الله نعافيه أنا سكسو دعينو هذا الكايدي بايا حتى نونتا لنا الحيران والله حالكم مفيعل ودن كيغا إلهي ربي سبحانه ققيس نبض الله السيو أحمد صالح آديات باكو سلامة يا صادق نبضي النولل آديات باكو سلامة يا قال سليمان تيد عاشقة آديات باندي سلامة يا هرتو وحان ليهي إلهي سبحانه وتعالى انت دمتي او gacanka xaq daran dishay Allah uu naxariisto inta dhaawaca ah Ilaahay ha caafiyo inta subxaan Ilaahay furimaha ku jirta ee cadawga la dagaalamaysa Ilaahay ha guuleeyo wadankeenana Allah ha guuleeyo dadkayagana Allah ha mideeyo dhamaantiina waa idin salaamaya mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad dhamaanteen aan isku soo duceyna dad muslimiin aan nahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dadkayaga dhimatay inta dhimatay oo cudurrada u dhimatay إلهي إنه شرنا فردوس أعلى جيو شهيدين كديو أنت قاعد كل جلياش إرجع حسد الدشي إلهي سبحانه وتعالى شرنا دي هجيو شهادة ذن الله كأقبله أنت محن كل هاي ترنولنا الله بدباديو ومدينا الصوماليات دنشري درويش آديات بكو سلامة يا آديات بكو سلامة يا نادر فيديو قشر قراية وحا إذا لا يهي dadka qaraxa ka macaasha umada in la xasuuqa ka macaasha argagixisada la shaqeeya waxa idin leeyahay habuunbuuninina argagixisada qof kasto waxa dila oo isqarxiya ama umada qarxiya waa gacan ku dhiigle waana dambiile waana ehlu naar waana argagixiso soo dhaweeyna male meel alla meelu joogaba gacan ku dhiigle waa inaanu isku sheegnaa inuu yahay dambiile qaran dumis qaa'inul wadan gacan ku dhiigle gacan birana waa in lagu qabto
mana ahan in la buunbuuniyo garoowa garoowe qaraxa ka dhacay wariyayaasha buunbuuninaya iyo dadka buunbuuninaya ee live-ka u soo galaya ma soo dhaweynayno ma fahmaysaa ma aha qaraxyada ay geysanayaan gacan ku dhig qof kasta oo isqarxiyo waa argagixiso qof kasta oo dadka dila waa argagixiso qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba qarxiya ama maxaan ku dhahay asagu naftiisa ha haligo ama maxaan ku dhahay bumba meel ha u dhigo waa argagixiso mana soo dhaweynayno waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto intii dhamatay inta dhaawaca Ilaahay dhaawaca ka kiciyo gacan ku dhiiglayaashana ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay war ka midooba magaalo walbo aad joogtaan qof walbo waa inaad askari noqoto waa inaad kontaroolada magaalada laga soo galayo ay ciidamada ammaanku magaalo walbo ay joogaan waa inay adkeeyaan oo ay baaraan xaafadaha waa in darisayn loo sameeyo argagixisadii ugus waa la jabiyay dadkii bay ciilkii kula soo laabanayaan magaalooyinka nabadda bay rabaan inay inta ku soo laabtaan ay qarxiyaan oo laayaan ma fahmaysaa magaalooyinka nabadda waa inay markaas foojignaan dheeraada ay sameeyaan sida Puntland oo kale Somaliland ama noqoto maxaan ku dhahay Kismaayo ama Barad Xaawaan noqoto war foojignaan dheeraada ha la sameeyo nimankii gumaad baa lagu hayaa ciidamadii qaranka ee sharafta lahaa ee geesiyaasha ahaa baa gumaadaya waa la baacsanaya markii la baacsado gedigood ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow bay u yaqaanaan farxiyo geel jiraad baa ku salaamaya Faadumo Cabdi aad iyo aad baa ku salaamaya ummadda Soomaaliyeed lab iyo dhadigba argagixisada gacan ku dhiiglayaasha cadow bay idin yaqaanaan idima kala jecla ma fahmaysaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha isqabsada ka wada foojignaada maanta ma ahan maalin laga fakaro siyaasad waddankayagu dagaal buu ku jiraa dagaal shisheeyuu ku jiraa dagaal wuxuu ku jiraa sokeeye oo niman waddankayaga u dhashay ee dhalinyaradayadii marin habaabiyey baa dhalinyaradayadii baa dadka xasuuqaysa ha ka fakarinina siyaasad ha ka fakarinina wax kale waxaad ka fakartaan magaalo walbo isaad isku badbaadin lahaydeen hooyooyinku waa inay askari noqdaan wiilasha dhalinyarada waa inay askari noqdaan ciyaalka dugsiileyda ah ee macallimiinta iyo dugsiileyda iyo maxaan ku dhahaayto waa inay askar noqdaan qof walbo askari noqo adigoon tuuta qabin adigoon qorina wadan adigoon qaranka u shaqaynayn qof walbo askari baad qaranka u tahay ogow taasaan leeyahay tan labaad waxaan leeyahay war ha buunbuuninina cadowga Soomaaliyeed ugus argagixisada ugus Puntland naga dooyo jubbada madoobe ka sheekee Puntland iyo maxaan ku dhahay to aad iyo aad baa ku salaamaya suldaankayga caashaqa hayna waa kan Puntland waa dhulkayagii waa dadkayagii waa inaan ka sheekayno waan ka xunnahay waxa ka dhacay dadka ku dhintay waa ka xunnahay waa ka xunnahay dadka ku dhaawacmay gacan ku dhiiglayaasha soo dhaweyn mayna nacaladu ha ku dhacdo wixii dila ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba ma ogolin wixii buunbuunshada ma ogolin ma doonayno dadkayaga in la xasuuqo ma doonayno in sun iyo qarax loo geeyo ma ogolin adduunyadu maanta waxay la dagaalaysaa coronavirus wax la yiraahdo war dadkayagii haddii la qarxiyo meelna ay hargab iyo coronavirus ay u dhintaan see yeelaynaa war dadka mideeda labaad waxaan leeyahay nimanka maamul xaafadeedyada jooga shamsadayda caashaqa shamse xuseen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku xafido aad iyo aad baa ku salaamaya nimanka aad iyo aad baa ku salaamaya cali cabdi war hooyooyinka yaa jooga walaalaha yaa jooga garooway joogaan boosaasay joogaan muqdishoy joogaan barad xaaway joogaan boosaasay joogaan waxay joogaan Hargeysay joogaan Burcay joogaan war dadkayaga in la laayo ma rabno annagu nimankaan baa ka soo horjeednaa argagixisada ah ee maamul goboleedyada horbooda ee madaxda isku sheegaya laakiin gacan ku dhiiglayaasha ah laakiin dadkayaga annagu in la laayo ma rabno war dadkayaga in la buunbuuniyo argagixisada al-shabaab ma rabno war dadkayaga in la xasuuqa ma rabno war waxaan u sheegayaa nimanka wariyayaasha isku sheegaya argagixisada buunbuuninaya ee ehlu naarinta iyo gacan ku dhiiglayaasha ah waxaan leeyahay argagixiso ma soo dhaweynayna anagu absolutely ma soo dhaweynayna argagixiso waxaan leenahay dadku waa inay gacmaha isqabsadaan oo iska ilaaliyaan gacan ku dhiiglayaasha askarta ciidamada qaranka ee qalabka sida baacsanaya qof walbo ummadda Soomaaliyeed ah ee Soomaaliya ka gees jooga baynan ka argoosanayaan oo isku qarxinayaan waad arkayseen maalin dhaweyd dad qaxooti oo Muqdisho jooga sayidka hoostiisa inay isku qarxiyeen Faarax Geelaad iyo aad baan ku salaamaya walaalayaalow waxaad isku hanuunisaan
argagixisadii maadaama la baacsanayo oo ciidamadii ay geesaha ka galeen way xanaaqayaan dadkay laynayaan magaalooyinka nabadda ah bay ku faafayaan dadkay qarxinayaan waxaan leeyahay dadka Garowe jooga dadka Gaalkacyo jooga dadka Boosaaso jooga dadka Hargeysa jooga dadka Barad Xaawo jooga dadka Kismaayo jooga dhammaantii waa inaad heegan gashaan runta idin sheegaya argagixisadu ma kala taqaan daarood hawiye ma taqaan jareer weyne ma taqaan reer xamar ma taqaan qof maskiina ma taqaan kin lacag la ma taqaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay cadow u yaqaanaan gacan ku dhiigle waa gacan ku dhiigle iska ilaalsha foojignaan wada gal qof walba waa inaad askari noqotaa dhammaantiisa u dhantiin ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya askari inaad noqotaan ciyaalka dugsilayda xataa qof cusub haddaad aragtaan oo magaalada soo galay waxa weeye waa inaad fiiro dheer u yeelataa tiraadan xagee ka timid maxaa qabanaysaa waa in la baaro qof walba oo askari noqo qof walba oo askari noqo ka gees 18 gobol oo Soomaaliyeed inta argagixisada gacanteeda ku jirta mee inta kaleeto waa inaad foojignaan dheeraada samaysaan dadka iyaga in la xasuuqa ma aha oo aan maxaa ku dhahayto garoon Fayrus waxa ka daran al-shabaab baa ka daran war dadka iyaga way xasuuqeen adduunyada hadda 10,000 oo qof aad baan u xanuunsanay 10,000 oo qof baa ku dhimatay maxaa ku dhahay Yurub 10,000 oo qof baa ku dhimatay annaga labadii bilood baa 10,000 oo qof naga dhimatay argagixisadu naga laysaa hore waxaan coronavirus noogu dhacay oo dadka iyaga la xasuuqay bishaara asalaam xagee aaday in dhaweyd Facebook kugu ma arag xagee aaday nabad iyo nolol miyaa ka wareegtay walaashay Nuur Cali aad iyo aad baan kuu salaamayaa nabad iyo nolol dhiigayga iyo maskaxdayda iyo maankayga ku jirtaa nolol kale iyo ma haysano Soomaaliya abshin kale ma haysano oo nabad iyo nolol ahayn ama saan ahayn labadaas nin oo maanta hogaaminaysa qaranka waa inaan ku mitidnaa aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan salaamayaa Maryamtayda Caashiq Maryam Cumar Xasan Cabdi Jeynaani maxaan ku dhahay Axmed Saalax al-Badri dhammaantiin Ilaahay ha idin xafido ummadayda Soomaaliyeed Allah xafido meelay joogtaba Allah xafido is ilaaliya mideeda kale nimanka maamul goboleedyada horbooda waxaan u sheegayaa walaalayaalow dadka ha sumaynina qaadkan Itoobiya ka imaanaya ee dhulka ka soo galaya dadka ha laga daayo allihiin alla ma yahay ummadda Nabi Maxamed ku jirtaan ma soontaan oo ma salaadaan ma aqaan inaad soontaan oo salaadaan war dadka baqaaxiyaha ka xira oo 3 asbuuc kaliya inta dhibaatadaanu socoto dadka ha la badbaadiyo 18 gobol oo Soomaaliya jooga inta argagixisadu haysata ma ahan inta nimankan maxaan ku dhahay maamulada horbooda ee inkaarta qaba war dadka qaadka ka ilaaliya qaadkan Itoobiya ka imaanaya ee dhulka soo galaya iyo dadka dhulka ka soo galaya iyo diyaaradahan isdaba socda ee ka soo galaya Itoobiya iyo Kenya war dadka ha laga ilaaliyo dadka waxaan u sheegayaa dadka Hargeysa jooga war sun ha soo gashanina magaalada ha sumaynina ummadda ma haysan qalab aan dadka ku badbaadino dad masaakiin oo 30 sano dawlad la'aan ahayn walaalayaalow dadka ha laga daayo jaadkan Itoobiya ka imaanaya sunta allihiin Allah haduu yahay oo soontaan oo salaadaan ha laga daayo dadka jaadka oo xuduudaha la xiro oo 20 bari kaliya xataa xuduudaha la xiro islaan hadaatiyin Fawsiyo Yusuf aad iyo aad baa ku salaamaya marka waxaan leeyahay meeshaas horta waa intaas argagixisada ha buunbuuninina nacalada ilaahay inkaarha ku rido masiiba Allah ku rido wixii dadka qarxiyay waxa dadka dila umada masaakiinta ah ee coronavirus iyo balaayo awalba ka baqaysay oo meel walba laga xiray dadka qarxinaya Allah ayaga ha ku celiyo masiibada ay maleegayaan argagixisada ha la iska ilaaliyo waanan u tacsiyeenaynaa intii dadka dhimatay waxaan u malaynayaa waa nin naftiid haliga oo nacalada ku dhacday buu ahaa waxa la igu yiri rag mas'uuliyiin ah baa wax ku gaareen sidaan maqlay mana ay dhiman sidaan maqlay mana maxaan ku dhahay dad kale to shacab ama qof shacab hal qof oo shacab ku dhaawacmay ha buunbuuninina nacalada ilaahay karaahiye ku rida habaara ummadda Soomaaliyeed ay isku meel uga soo jeesta argagixisada 17 sano ay naxsuuqayaan ha iska dhaqan madanayaha maxaa tiri madanayan ha iska dhaqan madan war maqaaxiya xataa iska daayo guriyiina cuntada ku karsada farxiyo geel jiray war Soomaalida waa dhaga adaka halka way dhamaanay gidigeen waa dhamaanay dadkii Sweden joogay
maqaaxiyihii baa furan meel walbay sanka isla gelayaan dhagam ma laha war dadkan yaa xukumi kara oo ummadan yaa wax u sheegi kara ummadan Soomaaliyeed ilaahay bay leeyihiin allah wato wehel uma baahna ilaahayow adaa u jeeday rabbi oo badbaadi adaa weyna waaxiday way dhamaadeen meeshan hadda wax allaala iyo wixii ka weynaa konton waa wada dhinteen qaarna isbitaalka yaalaan oo neefta ku dhagan war walaayaalow waxa awaamiirta ay dhaqaatiirtu bixinayso ka qayb qaata waxa kale oo leeyahay meeshan Kismaayo maxaa ka dhacay Kismaayo waxa la yiri nimankii cadawga ilaahay ahaa oo cadawga ummadda Soomaaliyeed ahaa Ahmed Uhuru iyo ninkii la oran jiray magaciisa ina Sayid Aadan maanta maxaan ku dhahaayay wiilashii ay maxaan ku dhahaayay labadooda kala ilaalin jiray ba islaayaa la yiri sidaan hadda hadalku igu soo gaaraya Ahmed Uhuru waa dhaawac baa la leeyahay dhaawac weeyaa la leeyahay meeshii ay maxaan ku dhahaayay gurigii maxaan ku dhahaa najaasada ahaa jaadka ha la joojiyo waan kugu raacsanay ha la joojiyo jaadka gurigii Ahmed Uhuru waxa la yiri uu kayaanka maxaan ku dhahaayay ay ku hayeen Kismaayo xabad baa ka bilaabatay ninkii la oran jiray ina Sayid Aadan iyo waa isdileen baa la yiri ninkii la oran jiray Ahmed Uhuru waa dhaawac baa la yiri Soomaali dhaga ma lahane Kariima Seed aad iyo aad ba ku salaamaya walaasha qaali yaa noo dhameeyna na dhameeyane oo yaa na dhameeyeen ma ku fahmin walaalkay ma ku fahmin waxa la yiri waa dhaawac baa la yiri sidaas baa warku igu soo gaaraya warka faahfaahintiisa kolle ilaa bari baan heli doonaa laakiin waxa la odayay Ahmed Uhuru yaha xabad baa ilaahay ku joojiyay xabad ha ku joogsato wadnaha inay uga joogsataan la rabay ilaahay oo corona viruska la sheegayo iyo qaraxyada la sheegayo ilaahay oo ayaga maad ku ekaysid dadka yaga masaakiinta maad dhinac ka marisid ilaahay oo rabbi oo kuwaan adigu meel nooga dhig adaa weyna waaxidahay war nimanka waxaan sheegayaa u dagaalamaya nimankan war nimanka ma wacalaati ma waysa dad idin dhalin war ma waan hooyooyin iyo aabooyin idin dhalin war waayaad Ahmed Uhuru iyo ina Sayid Aadan iyo inda koray aad ugu dagaalamaysan war hooyooyinkiin aawaya ma wacalaatihiin hani Abdi Bastola aad iyo aad ba ku salaamaya shartay la wareegayaan ilaahay oo ayaga ku ekeen nimankaas 29 sano bayna dhibayeen noloshii baan ka harnay Soomaalidii waxay ka hartay meelay joogtaba waxay ka hartay ummadii adduunka joogtay ka hartay qabigii jaadka hala joojiyo gibigaasa in adeer macaan hala joojiyo qaadka gabigiisaba hala joojiyo Axmed Saalaxow mideeda kale waxay jaadkii markii cirkii laga joojiyay Itoobiya ka soo galaya war waa sun weeye gacmaha la saaraa jaadka waa sun wax fiican ma aha dadkana tabartu ka qaada Soomaalidana fitamiin la'aan ba haysa hadda waxaan arkay qof meydkiisa la soo wado garow ugu dhintay corona virus ilma adeerayaal ma corona virus ban qaadi karna war caruurta naga sumaynina oo maqaaxiyahan aad ka buuxdaan iyo meelahan aad ka buuxdaan iskuulada hadii la idinka fasaxay ka joojiyo guriyiina kala gala ma laba asbuuc kaliya guriyiina kala gali weydeen oo xoogaa inta maxaan ku dhahay suntaani adduunka caalamka ka baxayso miyaad kala joojin weydaan Ahmed Kukayo waa dhaawac baa la yiri Ahmed Kukayo waa dhaawac baa la yiri waa kuwii dariiqyada sada lagu tuuray ba korsadeen anu waxaan u maleynayaa ciyaalkaas wacaleynayeen ciyaalkaas u dagaalanaya Ahmed Uhuru iyo maxaan ku dhahay sabeenti ina Sayid Aadan ahayd iyo maxaan ku dhahay kii afka biijaala oo afka indhaha kala marorsanaayo muxuu ahaa magaciisa ii sheega lalaha hebel inda koray waxa u dagaalamaya waa wacalaan maleeyay war allihiin Allah haduu yahay nimankaas u dagaalamin inay banaanka ka mara oo ka soo baxa oo dawladdiina isku soo dhiiba muslimiina dad wahdina wacala ahayn wiilasha qoryaha wataan sheegaya maanta waxa la yiri meeshii bay isku dhameeyeen madaxtooyadii bay isku dhameeyeen baa la yiri oo xabad iskala daaleen oo Ahmed Uhuru waa dhaawac ilaahay ummadda badbaadi rabbi waraan u bastay baan la soo duceeyo ummadda Soomaaliyeed oo qalbiga fiicano ii soo duceeyo aniga labada dhagood qiiq baa iga baxaya beeridii ma sheegaya labada dhagood waxaad moodaa tuubo dab ah in la igaga shiday baad moodaa dhuntu way kala go'antay qol baan ku xiranay shambari waxaan ku iri bastay baan bastay ya hadda ka hor waxa laga sheegay naagtii la oran jiray qadrada bastay weeyo cudurkii waygu sii balaado bohol yowga gaare ya
والله بستي ما راي بالله إله ربي ونبت بالها وعرورتي لا طوري إلهي يا كعافي إلهي وآمين هنا حاجي أد باكو سلامي ورواكو سلامي جوهرة إذا عاشقة جوهرة واكو سلام ورنا جوهرة قصل ميال ماشي كان لحسوقيو أرجع حسدي ماشي لورنجري قال كعيو iyo garowe bay u wareegtay markii janaala iyo caradii laga soo fiiri argagixisadu waxay tiraahdaa ma taqaanaa argagixisadu waxay tiraahdaa dad baa waxay dhahayeen dari dibira weynaa ka haleeyay bishaara makiiba ku haleeyay inaadaro makiiba mahargaba garan maayo kolley meel baan ku karantiilana qol baan ku xiranay ma kala garanayo waxay yihiin sababtoo daawo male waxa lagu leeyahay qol isku karantiil قالي وعي لنين قول اسكو كرنتيل ما فهميساه waxayna dhaheen qol isku karantiil bay nagu dhaheen waa la iskarantiilay soo waxa faaday ba dhaqtar haadin meelaad qol isku karantiil marka qol baa ku karantiilada waa karantiilada si kale wax ma u taqaaneede soo waxa faaday ma ah ilaahay hana caafiyo inta u jiran iyo inta u dhimatayna allah u naxariisto inta xanuunsanna allah ka qaado qurba joogtii dee kuwa dalkii aan kaga soo tagnay iyo annagu isku mid baana war maqaaxii way furan yihiin waa wada dhammaanay odayaashii iyo dadkii waaweyn horta way dhammaadeenba qofku aduuba maxaan ku dhahay konta gaaro waaba dhammaadeenba Soomaaliya kontameeyo bay sii marayaan hadda magaaladan aan deganahay hal magaalo aan deganahay kontameeyay sii marayaan nafaqa darrana waana wada haysaa guriyii ku xarooda waana laga waayay maqaaxii waa iska furan yihiin sanka isku saarayaan war aliin allamaya ummadda nabi maxamed ku jirta ummadda ha baabi'inina kuwa Soomaaliya joogana waxaan leeyahay war aliin allamaya yaa ummadda ku jirtaan ka daaya dadka qaadkan Itoobiya ka imaanaya laascaanood imaanaya Hargeysa imaanaya carrada imaanaya Garowe imaanaya islaan hadaatiin ka daaya dadka jaadka كدايا دتك جاتك الله إذا السمية أنا إذا دهني هبار إذا مقورة لكن أمد الصومالية ذي سنتان إسكدايا كدايا سنت دتك أنت سوا أنت هذا الكعبة إني ما فاهم إيسه آدي بان مرة بعدي مرصد حد إذا السلام يا آمين إيسو دعاء اسكو سو ودا دعينا ومد الصومالية دون هلو سو دعاء ضد بابا دنتي أنا وحنوصنا وأنا رونا شنبري بان هدا حنوصنا هدا وصور رونا يا لكن ضد بعد دنتي ولا ضد بعد دنتي أو محن كنا هاي تو قبرك اللي جاي مقالة waa lagu dhamaaday dadkii way dhamaadeen magaaladan Stockholm ee Sweden waa dhamaadeen dadkii hal qof ah kama noola dadkii waaweynaana waa wada dhamaadeen hal qof kama noola waa dhamaadeen dadkii ma fahmaysaa marka aniga waaba iisoo oy weeye waxay biyo kulul iyo malab iyo sanjabiil ku darso oo cab ha qol halkaan ku xiranayo ilmihiiba maxaan ku dhahay ta iska ilaalinay waxaan leeyahay sankii iyo wixii oo dhan baan xirtayo gacmihii baan xirto waa meegaysna anoo dhan miig baan ku jira ilaa balaayana miigay rabbiyo yaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun miigayn yaa waa la ismiigaynayaa meesha هل اسميجي يا كنعضي دقة إذا عاشق دقة فرح إذا عاشق إلهي هكو حفظ واكو السلام قالي سلام شرف بنكو السلام يا مركا أحمد أهورو إلهي وكورونا فيروسك يعود الرضع والعلوس أضياشان توجد أو أمد الصومالية نفط أوكاني إلهي أيها ما تكرر محا مساكين تقول ذيسا قرحان ضدك مساكين تقولنا معنا يان إلهي وأيها ما تكو أدس إلهي ومحا أمدان مساكين تا أد أوجد إلهي وكقبو إلهي أمد مساكين تا قل كدرة محا كدرة ولا قل كدرة هرت اللي انتاس يحب تسودة ولا شيء قال ذي بوي شاكت اللي انت يحب تسودة قال ذي ما ركتي حب تسودة كدرجين أنا ذي ورمه حب تسودة ناس ولا شيء هرت أمد الصومالية ذي حب تسودة اللي يسلقوا قاعد لا يا عافية آمين يا ربي أذكر إلهي إذن كمرده كلا قرب تاجنا وآمين كريم السيادة إلهي إلا سو قرب استاجا أنا قلنا نسكت عينه ومد الصومالية ده يسكت عيسو ورمد الصومالية ده إسقرب صو وحن إذن لا يهي مدنا وإذا كرت لنا عب أو مروى البا بيأكل بيأكل بيعبا بيأكل عادي وحبا كتيرين بقى أحمد صالحو إن هذا هل كان
كبح أو عبادة يسوع اسكدا دنبجة سبحان الله موسى فارح قبيال الدين إن شاء الله وعبادة يسر يا ولا إلهي إذنك أنا قردن بعبادة إلهي إذنك حق نقطة وتكنينا وصومينا وصلاتنا إن أدير الله كعافية ومدة هاي سيطانا اسكدا دتك الله محاتر ومدة هاي سيطانا اسكدا هذا الله كددال انت مسؤولية بايغا سارن تايدا مسؤولية بايغا سارن تن أمدنا مسؤولية بايغا سارن أديقون قرنا ودن أديقون قلبنا ودن أديقون توتو ودن قف وليبو إذا بعد دلك أوتيه أجو دل يدبن ماشات شوكتد ما أنت لو نجا قبرك ما أنت كهريس دلك مسؤولية بانك سارن قف والبو عقل له أو أمد الصومالية هذا حيوان إن النقطة معه أنا نفط إذا قلنا ورانا أنا كل جاي عبادة سنية أنا كل جاي سومية أنا كل جاي عنرات سنية حيوان أو كلاتها مركز حيوان والله عن سويدن سيدا وحوجد عن أنا إدي شيء جاي سليمان درويشو وحوي أمدي وكوبا بعد سويدن قفنا من نورا كنت قف بيسي مريسا وانا الصومالي وانا دمار الصومالي دي تدكي كان waa dhamaanay laba boqol iyo xoogaa baa la sheegayay dhowr kunna waa taala dadkii ma fahmaysaa marka waxa idin sheegaya dadkii nala iska cibaadayso iska seexo anigu waa xanuunsan ilaa maalinta ka dhimanayo Soomaaliya waa u taagnaanaya xaq baa iga saaran xaquuq baa iga saaran cidda dadkayga laynaysa cidda dadkayga dhibaysa qaranimadayda ummadda qofka ka soo horjeeda midnimada iyo qaranimada iyo inay xoogsato Soomaaliya mid noqoto dawlad noqoto ilaa maalinta budda la idhigo qabriga la idhigo oo anta halkaas ay iiga soo ururto naftayda iyo cibaadadayda iyo wadanku xaq buu igu leeyahay ciidayda iyo dalka xaq igu leh ciidayda iyo dalka xaq igu leh geeriduna waa xaq kama baqo anigu geeri ogaada dadka saska ka qaba geeridow anigu geeri kama baqo taas ogaada iska naso bishaara week insha Allah waa nasanaya ma fahmaysaa sababtoo geeridu waa qasab al xaqiiqa waxa la yiri beerka laga mudiyo fulaygu waa baygaga ayaa inaan mawdka laga baajirayn baaha yaa u sheega laakiin adoo dulli ah oo baqaya inaad dhimataa xun adoo fulay ah oo dulli ah oo baqaya inaad dhimata xaq adoo ku adimaya dhimo yaa ku qawl xaq walaw kaana murra waa ehlu naarin gacan ku dhiglayaal ah Axmed Madoobe ina Sayid Aadan ina hebel kaacanan dani dibira weyne Muuse Futaharag Muuse Shaani ajar baa laga helayaa baad idin marka dhimanaysaan xataa sheega inay duliyiin yihiin gacan ku dhiglayaal wallahi ajar baad ka helaysaan ummadda waa in laga qabto ummaddu waa muslimiin waa inay midowdo waa inay dawlad yeelato waa inay nolol hesho waa inay nabad hesho waa in argagixisada laga sifeeyaa معانتو ورد علي وابري إلهي سبحانه وتعالى كأقبل الدعاء إي دعيسي آمين يا ربي آمين يا ربي إلهي كأقبله آمين ولا شيء قالئه آمين وحوى يسلع عبرا غيرود وحق والله نبنا يا إن شاء الله تعالى وحردين شيء يا أيضا وحضرا إن الله بنتو آد بقيسد وقف عاقا آد كبقيسد إنا طمطو كو عبادة القف والبالغ لياي أنا عبادة يسنو شنتي وقتنا أن تكنو ودن كيجانا أن أدد له حق بنقول لياي ودن كو حق بنقول ليا وأنا عباده ودن كإن لو أدد له ودني الله نقضه ومد الصومالية الله اسكدمه والله وعباده قفكي أوقب صونكي صلاة إيو محن كنا هايتو عرورت هذا بريس إنا أدونه تتكلي عباده ورودن كاجا إنا أدوش قيسو أو ودنيده وعباده ودينيا واي ما فهميسا قفكا ودنكاغا ديبايانا inaad ka soo horjeesto umada u istiimiso waa cibaado weeye ma fahmaysaa hibo maxamed umu aad ba ku salaamaya iyo Umar Ibrahim Siyaad ugaaskayga aad ba ku salaamaya Faaduma Ahmed Dorre bishaara Qalif Ali hay waryar waa kugu dhacay corona virus Allah ka caafiyo aamin ya rabbi Faadumo aadan Dorre aad ya موسى فتحرك بالله فايسوي موسى فتحرك بالله إلهي مسيبها كردي ولا ليالو دتك مساكين تامها عذرك ugu dhacaya wala yaalo kuwaas muu ku dhaco waxaan idin weydiin qaraxa dadka masaakiinta baa ku dhimanaya cudurka dadka masaakiinta baa ku dhacaya
عذركو كو waxaan arkaya jigjiga jooga ku haya cudrow imow jigjiga war jigjigaha tagin cudrow waxaad u tagtaa axmed uhuru u tag ugu gal gurigiisa ugu gal dani dibire weyna gurigiisa ugu gal ilaahay kuma darnaada Muuse Futaharag gurigiisa ugu gal ilaahay kuma darnaada abdi mid kale leeyahay inda koray gurigiisa ugu gal ina sayid aadan gurigiisa ugu gal halkaasaan ku dirnay waliba ayagu waa odayaalo daqiiqad bay ku dhimanayaan hal daqiiqa noolaan mayaana saas bay u soo kogayaan Umar Dhukaal aad iyo aad ku salaamay ilaahay ha noo naxariisto deeqa Axmed Gulan ilaahay ha noo naxariisto alla dadku waxaan ku iri marka waxaan leeyahay arrintaas ay soo gaartay ismahaan aad iyo aad baan ku salaamaya ismahaan qodob aad iyo aad baan ku salaamay arrintaas ay soo gaadhay Axmed Uhuru inuu dhaawac yahay wiilashaana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iskaga soo baxa hana u dagaalaminina iskaga soo baxa hana u dagaalaminina ha u dhimanina wadanka idin baahan mid kale aan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed markii hadda deyntii baa nalaga cafiyay oo wax yar oo soo galaan maxaan ku dhaw wadanka 12 milyan baa nalagu sheegaa anigu laakiin u malaan mahaya walaalow Axmed Maxamed Cumarow u ducayn ma adigu u ducee hadaad rabtid anigu dadka Soomaaliyeed oo kale aan u ducaynaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay dhibta ha ka qaado waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan leeyahay Ilaahay bogooda burcad ha isku mariyo waxaan leeyahay gacan ku dhigliyaasha iyo cadawga Allah ka dulqaado 18 gobol oo Soomaaliya kuwa qurbaha jooga Ilaahay mid ha ka dhigo dambigooda Allah ha dhaafo cudurrada Allah ka dulqaado laakiin kuwaas u ducayn maayo ha igu qasb kuwaas u ducayn maayo Ilaahay waxaan leeyahay far iyo suul Allah oga dulqaado dadkan leeyahay kuwaas Allah oga dulqaado cadawga dadka weeye iyo dalka kuwaas intaas waa intaas waxaan kaloo leeyahay waxaan leeyahay hadda deyntii baa nalaga cafiyay ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ma hadlay wiilasha Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah gabdhaha yay furin ilmahana ha koriyaan waliba kuwa Soomaaliya jooga kuwa aan halkan ku dhalayno ilaahay baa og waxay noqonayaan ilaahay baa og waxay noqonayaan wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada war isguursada oo u ogolaada gabdhaha dhalinyarada oo hadda markii shaqo la helo deyntii baa nalaga cafiyay wiilashu ay laba iyo saddex guursadaan aliin Allah duuyahay sababtaas ay idin leeyahay ma idin sheega jihaad baa lagu jiraa jihaad ya fi sabiilillah baa lagu jiraa wadanku waa 12 milyan baa la leeyahay war 12 milyan wadan barwaaqo baan joognaa Kenya 70 milyan baa afka nagu soo kala haysa Ethiopia oo 100 milyan afka nagu soo kala haysa dadka iyaga qarax baa dhameeyay qaar waxa dhameeyay shuban biyood war waxa idin leeyahay daaya nimanku ha guursadaan nimanka gabdhaha furahayana war gabdhaha furinina ilmaha koriye oo ilmaha saasqinina ilmaha si fiican u koriye siday wadanka ugu haraan ilmahaane oo ilmo wadanka loo koriye ilmo aqlaaqaysan oo wadani ah oo wadanka gacanta ku dhiga oo aan qabyaalad aqoonin oo wanaagsan ilmaha loo koriyo wadanka saas loo koriyo oo wixii dhintana dawladda hal la dhiso oo dawladda dhinacyada laga istaago wiilkii dhinta ilmihiisa sida dawlad xafido xanaanayso quraan barto oo iskuul barto jaamacad barto loo helo aliin Allah haduu yahay hadii kala wadanka waana laga qaadaya 12 milyan maxay tahay 12 milyan maxay tahay 12 milyan ma dadba waa wixii 12 milyan waxa qiyaas bay ahayd Allah og hadda waxay tahay qarax baaba dhameeyay dadkii mideeda kale waxaan leeyahay war corona virus ha noo soo gelinina corona virus ma qaadi karno jaadkan Ethiopia ka imaanaya dani dibira weynow Allah haduu yahay iyo Muuse Futaharagow jaadkan xuduudaha ka soo galaya Ethiopia ka imaanaya ilaahay hadaa taqaaniin oo ummadda Nabi Maxamed ku jirteen maba aqaansan islaan u tihiin ummadda ka joojiya oo xuduudaha soo xira 3 asbuuc kaliya xuduudaha soo xira oo dadkana ku qasba haddaad ciyaalka iskuuladii ka fasaxdeen inay guryaha ku jiraan waxa kalaba waad ku qasabtaan ku qasba dadka 3 asbuuc la dhiman maye dadka 3 asbuuc ama 2 asbuuc xataa kaliya war dadka yeeysa qaadin hadda waxa arkaya dad u dhintay magaalada Garowe iyo Burcaba dad u dhintay arka bahalka tan labaad qurba joogtana mid baan kula dardaarmaya walaalayaal qurba joogto jooga qurbihiina malaku mawdka ilaahay baa keena geeridana Allah keena laakiin dadka Soomaaliya jooga ma qaadi karaan cudur waa dad aan daawo haysan waa dad aan neefta ku dhigta dadka dawladii xoog lahaaba adkaysan la Soomaaliya ma fahmaysaa neefta bahalkan dadka ka soo saara
ma hayaan dadka Soomaaliya jooga diyaaradaha raacaysaan wadankii ku siyaacaysaan joojiye haddii malagiinu galo waa dhimanaysaane ilaahi alliin allah haduu yahay jooga oo dadka cudurka ha u geynina jooga wadankaad joogtaan istaan bay ku ahaada wadankaad joogtaan qurba joogtooy maxaa ugu siyaacaysaan wadanka oo dadka masaakiinta oo waxba haysan oo lacag haysan oo aad aragteen dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed aa ugu geynaysaan cudurka oo Hargeysa iyo Burco uga dageysaan iyo meesha la yahay xamar hadda lagama badagay iyo Garowe ka joojiya kuwa xuduudaha ka soo galaya qof walba oo meesha aad joogtid joog baan leeyahay isku wacyi galiya taas meesha aad joogtaan jooga isna ilaaliya gacmihiina iska dhaqa is badbaadiye ilaahay baa badbaado leh intaas waa intaas mar labaad iyo mar saddexaad waad xanuunsan tahay allah bari ilaahay waa baryayaa adiguna ilaahay ii soo bari waxay u qabtaa haddii la dhinto inay argagax tahay dhimashadu argagax ma waa masiibooyinka waxa weeye dabeeciga ah oo jiraduna waa iska caadi haddaan jiranahay ikraanay ma fahmaysaa adigu yaa jirada kaala ballamay inaad jiranayn inaad jiranayn yaa kaala ballamay haddaad jiran tahay iyo haddaad caafimaad qabto labadaba ilaahay ka cabsidiisa waa lagaaga baahan yahay anigu ma ii dadka markay jiradaan ama ay naftooda u baqaan kaliya baqa markastaan baqaa dhal culumaan ahay salaadaydaan tukadaa soonkaygaan soomaa sunnada ah ilaahay baan ka cabsadaa ah waxa weeye walaalay marka anigu ma ihi najaase ma ihi mar walba ma fahmaysaa bishaara qalif cali qaadka saada hadday joojiyaan dadka qaadka hadday joojiyaan dadka ku kacaya oo xasuusanaya dhibka iyo beenta ay ku hayaan siyaad bare UN waagaas baa lagu astaghfirullah farxiya geel jiray waa ku salaam alla dhibadnida adigana qandhadii baa igu soo badatay farxiya geel jiray abaayo hadda ma waxaa kula talinaysaa inaysa jaadka joojin sidaan loogu kicin masaasaa leedahay adaaba dhib ka shaqaynaya ka war waxaan idiin sheegayaa marka ballanteenu waa shaqo meelaan joognaba aan isku dhiiragelino inaan aamin ya rabbi wacyigelin ayay u wada ummadda Soomaaliyeed kibgoong aad iyo aad kariimo seeday aad iyo aad waxaan marka rabaa wiilasha guursada dhamaantii guursada wiilasha Soomaaliya joogo yararka ciidanku waa inay laba naagood saddex naagood ay leeyihiin wiilasha ciidanka hadday dhintaan sidii ciyaal uga haraan gabdhuhu waa inay u ogolaadaan hadda markii si fiican loogu soo daayo qarashkii adduunka naagaha waa inayna masayrin waa inaan iska celinaa Kenya iyo Ethiopia dadkeeda hantideena rag iyo dumar noo dhowra oo tiro badan waa inaan dhaldhalnaa horta horeeto waa inaan dhalnaa 10 sano isku soo socota waa inaan 3 milyan oo dada aan dhalnaa 10 sano soo socota hadaan 4 milyan ba dhalin ma fahant aad iyo aad ba ku salaamaya haba macaan shaqadan shariif joge abo macaan seetahay allow bel ka ashab aamin habar yar shaqadan shariif joge habar waa iska xanuunsana maalmahan oo dhan alxamdulillah hadda laakiin ilaa shalay waa roonahay maalmahan oo dhan baan xanuunsanaa meel halkaan qol halkaanahan iska joogaa alxamdulillah waa roonahay hadda waan xanuunsanaa maalmahan oo dhan marka alxamdulillah anu waa fiicna habar yar dad badan waad ogtahay reer Stockholm iyo reer Sweden dad badan baa naga dhintay habar yar adigu seetahay caruurtaada ilaahay ha idin xafido reer Stockholm iyo reer Soomaaliya oo dhan qurbaha iyo dalkii meelaad joogtaanba allah ha idin xafido is ilaaliya halla is ilaaliyo oo maxaan ku dhahay halla is ilaaliyo naagaha way masayrayaan maxaa la sameeynaya wardoy hadii warda cali waa bariyay hadii lacag la helo oo adduunka barwaaqo la helo waxba masayrayaan waxooda iyo waa la siinaya waana loo shaqeynaya hadda maalgelin badan baa Soomaaliya galaysa markaan dhaldhalno baa ninka maxaan ku dhaha ku ekaanaynaa niman badanna waa helaynaa
de wiilal badan waa in la dhalo wiilal badan wiilashi waa dhammaaday qaar qarax baa ku dhammaaday qaar al-shabaab baa shaydaan baa laayay qaar maxaan ku dhahaayay to ilaahay kuuma darnaadee shuban biyood waxaa hadda maalin dhaweyta la ii sheega ayaan maxamuud ee xoogaa walaalay ma garanayo waxaan u malaynayaa hargab shimbireed bay ahayadee ma corona virus baan dhihi karaa ilaahay subxaana wa tacaala corona virus naguma rido sababtoo ah corona virusku soo kii maaha neeftu dadka ku dhegaysay oo sakaraadka noqonayay alxamdulilah wa macaan yaa hargab shimbireed weeye waxay ahaya aniga yaa waa hargab shimbireed ma aha corona virus insha allah ilaahay idankii laakiin waa la iska taxadarayaa ilaahay idankii waa la iska taxadarayaa marka war waxaan idin leeyahay carruurta ha la badiyo hadda lacagtii waa laydii soo sii daayey kuwiina ha bilaabeen haddayna dhahaan ka waran bishaara khaliif cali kuwiina raggayaga anigu ninba ma hayste laakiin nin haddaan haysan lahaa waad ila qaybsan lahaydeen gabdhaha soomaaliyeed waa u ogolaan lahaa yaa ila guursadaa idin dhihi lahaa been idiinma sheegayo sidaad u dhaldhashaan carruur badan mideeda kale dadkii qurbaha joogayna carruur ma dhalaan dadka soomaaliya jooga waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga ha ku tashanina absolutely ha ku tashanina runtaa idiin sheegayaa carruurtay dhaleen suuqay galeen maxaan ku dhaha naf ma leh waddankii waxba u tari mahayaan waa say wallaahi toorrey bay iskala daaleen waa isdhammeeyeen waa alkuliistayaal ha ku tashanina carruur badan dhala naaga badan guursada nimanka soomaaliya joogow mideeda kale carruurtana xanaaneeya naagahana ha furinina marba haddaad carruur ka dhashaan carruurta ha la xanaaneeyo carruurta siday waddanka ugu haraan maxaa la dhahaa bal ii sheeg corona virus miyaa la dhahaa iyo baaste macaroni ma naqaana ilaahay sharkiisa hanaga du cabdisalaan aad iyo aad baan kuu salaamaya eeda macaan eeda bishaar waan ku salaamay aad iyo aad xasan wiilka reer gado aad iyo aad baan kuu salaamaya baaste macaroni baa iska dhahaynaa liinta iyo toonta iyo xabad suudada saan jabiisha qoyan abaayo isticmaal ilaahay kaa qaado aamiin yaa rabbi ma fahmaysaa war wallaahi haddii kale waddanka gabdhaha waa la kufsanayaa war gabdhaha waa la kufsanayaa kuukaayaa kufsanaysa waddankaa la idinka dhacaya waddankii soomaaliya barwaaqo weeye ma fahmaysaa hadda soo nolooma furin lacagihii iyo adduunkii waxaa la yidhi lacaga malaayiin ah oo 30 sano nalaga haystay baa nala siinaya wiilashu shaqay helayaan soo waxa fahamtay maa gabdhuhu shaqay helayaan barwaaqaa la helayaa war gabdhow guursada maxaan ku dhahaye to wiilashana ha guursadaan wiilku markuu 15 sano jiro ha guursado u guuriya shaqana ha loo raadsho yaa kalluumaysiga hala warshadaha loo sameeyo ilaahay kuuma darnaadee adduunyada ilaahay maxaan ku dhaca carruur saas ha loo daadiyaan ku iri 15 sano soo socota waa inay dhalataa ilaa 2 milyan oo ciyaal ah waa inay dhalataa 2 milyan oo ciyaal waa inay dhalataa ugu yaraan yaa oo waxa weeye 15 sano jir gaara 15 waa inuu gaaro markaas xuduudaha ku xitixinoy xuduudaha ilaaliyaan soo waxa faantay ma aha baaste macaroni baa la dhahaa ka waran axmed madoobe dhuxulaystay antigeeda naarhay statig war in adeer waa ku salaama ogaaskayga axmed nuur sheekh cabdi axmed geeda naar yaa ina 3 waa inaad guursataa war yaa wiil dhalinyaro baad u eg tahay xasan wiil gado waa inaad walibana adinku reer gado waxaad degantiin xuduude nimanku waa inay 3 naagood guursadaan iyo 4 yaa hadda markii shaqo la helo mar dhow shaqaana loo furaya 7 bilood oo soo socota insha allah maalgelin badan baa waddanka soo galaysa dhalinyarada dhan shaqay helayaan ma hesheen shaqo 3 naagood guursada waxaan ku iri habeen walbaba isku mar waa inay 3 uur yeelataa 3daas waa inay 3 ciyaal dhalaan haddii aad naaba 4 guursanayn 3daas 15 sano soo socoto waa in ilaa 4 milyan oo ciyaal waa inay dhashaan oo ciyaalkaasna de inay dhintaan maaha waa in la hayo oo ciyaalka la xanaaneeyo oo waxa weeye gacanta lagu hayo weeye ciyaalka haddii wiilkaasu dhinto ilmahaasi dhalay dawladda xanaanaynaysa ilaahay idankiis dawladda xanaanaynaysa dawladdana waa in geesaha laga istaagaa dhuxulaysta ii waran eedo macaan aad iyo aad baan kaaga kuu salaamayaa muha lester aad iyo aad baan waxaa la yiri geeda naar aan idinka warramee
maanta waa dhaawac baa la yiri asaga iyo ina siida aadan baa la yiri xabad bay iskala daaleen mid jaban iyo mid jiisa iska dhigeen baa la yiri mid jaban iyo mid jiisa iska dhigeen baa la yiri laakiin wiilasha dhimanayaan ka xumahay wiilashaan ma wacalaa aawa dadkooda war wadankiina idin baahan war ha u dhimanina nin tuug ah oo daba dhilif ha u dhimanina habo naga daa naag labaad ma rabno ayaan maxamedey haddii aad naag labaad aadan rabinin waxa wadanka kugu qabsanaya oo ciyaalkaaga dilaya oo diyaarada kusoo weeraraya oo adiga ku kufsanaya ninkuu kaayaayo 70 milyan ah 80 milyan ah nin Etoobiyaan oo 90 milyan ah 100 milyan ah xagee aadaysaa markaad ciyaal ku dhaldhashid meesha oo wax ku macnaheedu ku difaaca aadan haysan oo raggi dhamaadeen oo qaar qarax lagu dhameeyay oo qaar maxaan ku dhahay hadda corona virus baa loo dhamaada qurbahana horta qurbaha naagihiina jooga ilmaha dhalaysaan u malayn ma rajo inay leeyihiin Soomaaliya rajo oo male beenidii ma sheegaya anu waxaan la hadlayo qurxay habar yar haddaad tahay gabar aan wali guursan aqli xumay ku taa inaad tiraadid nin labaad ma rabo waxa la xaragoodaa ama la kibraa markii aad war jahaad baa lagu jiraa jahaad yaa muslimiin baa lagu jiraa Soomaaliya waa in dad badan ay dhashaan maalin dhaweyto barnaamij laga sameeyay Soomaaliya dhageysanayay waxa la yiri ilaahay baan ku dhaartay inaan been idin sheegay waxa la yiri ciyaalka Soomaaliya 70% iyo 5 waxay u dhintaan baa la yiri 2 sano ilaa 3 sano ay ku dhintaan nafaqa darray u dhintaan ninkii maxaa ku dhahay shaqo ma haysto waxa weeye ilmihii wuu ka tagayaa hooyadii ma xanaanayn kadho saakay waxay aad suuqayaan la fariisatay ilmihii balaaye iyo diif say u cunayaan oo boor ugu bidayo oo haday rabaan nafaqa badan ma helayaan bay shuban biyood iyo balaayo ku dhacayaan coronavirus asaga ka daran ilaahay coronavirus kaas hay ugu soo qaadin muhaw coronavirus battery daacun caloolaad buu ka daraya marka ilmihii markay saa u dhamaanayaan gabdhayow Soomaaliyeed iyo wiilalyow Soomaaliyeed oo Itoobiya 100 milyan geeskiina degantahay wadankiina macdan baa ku jira shidaal baa ku jira Kenya iyo Itoobiya geesaha idinka degan oo min 100 milyan carabti waa idinku soo socotaa ilmihiini waa dhamaanayaan dadkiina qarax baa dhameeyay gabdhihii ma ogola in laba nin xataa ilmahay dhaleen ma xanaanayn karaan war hadda mardhow ilaahay idankii lacag badan baa helaynaa ma fahantay waa degaynaa oo Soomaaliya waa kala degaysaa anigu waxaan la hadlayaa dadka Soomaaliya jooga walibana qurba joogtiina xaaladiina alla saddex ilmood baad dhashaan saddexdii ilmoodna markuu wiilku 20 iyo xoogaa gaaro ama markuu 20 gaaro mid kala tooray ku dhufanaya ama mid kala dilayaba ama yow wuxuu yahay malakaasi qurba joogta horta rajo mabali in yar oo ilaahay u naxariistay ma ahane rajo mabali hidinba ma fahmaysaa 15 jirka maxaan ku dhahaayay to xaway soo ilama qabtid absolutely qurba maxaan ku dhahaayay to 15 jirka waa loo qubeeyaa 15 jirka waxa kaaga daran hadda gaangister bayba noqdeenba gabigooduba gaangister bay noqdeen marka wadanka yaa idin ilaalinaya hadda dhamaateen haddii qarax idin dhameeyay haddii qaar qabiil loo dilay 30 sano dad is xasuuqayseen hadda adduunkii baa idin furmay lacag baad helaysaan maalgelin badan baad helaysaan insha Allah taala dhalinyaradu shaqay helaysaa dhalinyaradu waa inay si fiican u dhashaa caruurtana waa in la xanaaneeyaa dawladnimadana waa in la adkeeyaa dawladnimo waa inay horta jirtaa dawlad ilaalisa waxaan iyo rag lagu ilaaliyo waxa la yiri ilaahay markuu geel ku siinayo raggeedu ku siiyaa hantidan Soomaaliya aad haysataan oo Carab ku soo kala ordayso oo Kenya ku soo ordayso oo Itoobiya ku soo oo cid walba afka u soo kala hayso waa inaan rag u haysanaa iyo dumar difaaca waa inaan u haysanaa 12 milyan baa la sheegay markii ugu dambeysay 12 milyan intii qaraxiisooba ku dhimatay ku dar ka go intii maxaan ku dhahay qabiiladu iska dileen ka go intii coronavirus u dhimatay ka go intii maxaan ku dhahay to bas u dhimatay ka go abaaruhu intay dileen ka go ma qaa 8 milyan iyo waxa tiin 8 milyan dalkaas u weyn oo sa u barwaaqo badan ma ilaalin kartaa war dalkan ilmaha loo dhaldhalo anigu runta idin sheegaya gabdhow ilma badan dhaldhalo oo naaga iska dhiga wadanka nabad Allah ka dhigo wadanka nabad Allah ka dhigo intaas waa intaas marka
mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar afraadba waxaan u tacsiyeynayaa dadkii wax ku noqday magaalada Garowe waxaan cambaaraynayaa cid walba buunbuunisa gacan ku dhiglayaasha argagixisada ah cid ka dambeysay male cid dadkiisa qarxinaysana male dad kale dani baa ka dambeeyay dani daacuun baa ka dambeeyay hebelkaaga war cid ka dambeysay male waa argagixisada ayagaa dadka laynaya ayagii baa la laayay ciil bay qabaan ma fahmaysaa ciil bay qabaan dadkana way laynayaan nimankii janaale lagu laayay waxay dhaheen maalintii dhaweyd janaale oo nalaga qabsaday baan dadkii qaxootiyaasha mid baa intuu miino isku soo xiray buu wuxuu laayay dad sayidka hoostiisa qaxootiyo masaakiina buu isku qarxiyay nimanka waa cadowga ilaahay cadowga Soomaaliyaana soo dirsada waa gacan ku dhiglayaal cid ay saaxiib leeyihiin ma jirto laakiin waxaad saga ilaalin kartaan kan dugsilayda kan macalinka kan iskuulka jooga islaanta giyaanyada gadata gabadha iskuulka ka timid midda dukaanka haysata gidigin askar wada noqda bishaaro ragga Soomaalida sida loo dhalo way yaqaaniin laakiin si loo dhaqdo ma yaqaan maya waa inay xamdi xaajiyay waa inay koriyaan ilmaha waa in la koriyo ilmaha xamdi xaajiyay waa in furniinkan tirada badan la iska daayo gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ah ee Soomaaliya anigu Soomaaliya 2019 baan tagay ilmaha aad dayacaysaan joojiya gabar waxa arkaysaa 13 jir 14 15 jir oo garoob ah oo laba ilmood haysata hal la joojiyo waxaasna waa shaqo la'aanta ani sidaan u arkay ku qurbaha jooga waa kibir iyo xoogaa kultuurkii oo xoogaa kroog dhacay kultuurkiina dhaqankii qurbaha iyo dhaqankii baa isqabsan la taasna way jirtaa laakiin qurbaha rajaha naga qabanina ana idin sheegay ilma idin ma soo wadno dadka Soomaaliya jooga ilmaha aad dhasheen isqabo ha isfurinina kow ilmahana hal xanaaneeyo kuwa Soomaaliya jooga war ilmaha hal xanaaneeyo dawladnimadana hal adkeeyo sida ilmaha ay sharaf ugu yeesho oo hadda waa aragteen askarigi dhinta ilmihiisa waa la xanaaneynaya dawladii oo waliba tabar yar marka hal xanaaneeyo ilmahana nimankan iyo gabdhahana waagi hore hooyooyinka dul qaadan jiray anu saasaan qabaa ya gaajada isku dirta hadda haday shaqo helaan waxaan u maleynayaa dhalinyarada Soomaaliya joogta inay isqabayaan ay isfureen ilmahana inay xanaaneynayaan ba ila tahay ya ilaan awal maxaan ku dhahay to shaqo la'aanta iyo gaajada isku diraysay hooyo dhexda u xiran tahay hadda aragtay dhibta wadanka lagu hayo gabadha aad iyo aad maya hadda kadib dhibti waa naga baxaysaa xamdi xaajiyay wiilashii shaqay noo helayaan ilaahay idankii waayada nalaga qaaday dhibaatadiina haysatay oo deyntiina laga cafiyay wiilashu shaqay helayaan dadkaas marka waan u tacsiyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad wariyayaasha dadka ku qora video maxaan ku dhahay Facebook wax dhammaantood ha buunbuuninina cid ka al-shabaabna ha ka leexinina dambigay galeen ha ka leexinina haddaad arag al-shaydaan baa la dhahaa bishaara ma dagaal baa dhacay bise qarax garowa dad gacan ku dhiglayaashii argagixisada ahaa dad mid ilaahay naarta jahannaba ku fageeyay baa dad isku qarxiyay baa la lahaa marka waxa la yiri gudoomiyaha degmada iyo nin kale to asna booliis miyuu ahaa wax saasa baa wax ku noqday baa la yiri waxa kale oo dhacay baa la yiri Axmed Uhuru dad bulaayay baa la yiri asagiina waa dhaawacmay baa la yiri asaga iyo ina siid aadan baa islaayay baa la yiri saan maqlay ma fahmaysaa saasaan maqlay madaxtooyadii bay isku laayeen gabdhaheena dhalamada badiya maseerkana daaya maya waa inay dhalmada badiyaan ay raaxaystaan 15 sano soo socota gabdhaha waa inay sidii waa inay u dhaleen balaayadii waa inay u dhalaan jud iyo jabaad waa inay dhalaan ciil baaba ay qabtay markaan arkay Kenya iyo Ethiopia oo maxaan ku dhahay 7 milyan ah annagana 10 milyan maxay tahay 10 milyan hooga Nairobi inta ku nool baaba naga badane waa ciil iyo calool xume ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto bal dadka iyaga sida loo xasuuqayaday ilaahay aan kugu dhaarshay ya kan hadda dhintay waa Soomaali ka war oo isqarxiyay kuwa la dilayana waa Soomaali yaa u danaynayaan dadka laynaya yaa u danaynay cadow bay u danaynayaan cadow baa soo dirsaday waa nimankii imaaraad waa argagixisada imaaraad iyo Kenya iyo balaayo iyo cadowga Soomaaliya maxaan ku dhahay hawlgaliya asma warsame aad iyo aad baa ku salaamaya bisinka ilaahay oo umada ka badbaadi masiibada kuwa inkaarta qabana ilaahay oo naga qabo aamin ya rabbi ayaan Umar Ahmed aad iyo aad baa ku salaamaya حمد حاجي
يا ها walaasha waa isku yaaceen sidaan maqlay waa islaayeen baa maqlayo hadda warka xataa asagii baa dhaawaca maqlay axmed uhuru baa dhaawaca sidaan maqlay qalbi madoobe rax ninkii ka dad badan lama dagaalami kartid ninkii ka dad badan lama dagaalami kartid maalin dhaweeytana barnaamijka ku jira Al Jazeera dhalaysa anigu waa dhalay inta dhali karay qaaliyay maryanay anigu waa duqoobay inta dhali karay waa dhalay haddana waxa igu hara waa dhalaya nin baa guursanaya Soomaali ah waa dhalaya wixii igu hara 2 iyo 3 wixii igu haray waa dhalaya ma fahmaysaa alxamdulillah waa dhalay wixii aan Soomaali u dhali karay waa u dhalay ma fahamtay laakiin gabdhiina yaryar iyo wiilashiina yaryar baa sheegaya guursada oo dhaldhala kuwa badan dhaldhala soo waxa garatay ma walibana kuwa Soomaaliya jooga qurba joogtu waxa weeye ilmahay dhaleen banaankaaba lagu laayay meesha Canada la dhaho 3,000 oo wiil baa ku xabaalan Canada Mareykanka sidoo kale xabsiyaday ka buuxaan ayagii baa iswada dilay rajo male kuwa jooga qurbaha anigu kuwa Soomaaliya jooga sheegaya Soomaaliya ilmo badan ha dhalaan gabdhuhu ilmo badan ha dhalaan sida iskaga celino Kenya iyo Ethiopia wariya Ilaahay yaqaan 20 sano soo socota waa in malaayiin wiilal iyo gabdha dhashaan sida u badan hadii kale yaa wadanka noo ilaalinaya wadanka Ilaahay baa idinku dhaarshay ya Kenya 70 milyan ya baan leenahay biyo bad baan ka cishanayna maxaa ka cishanaysaa 10 milyan baaba taay 70 milyan weeye ayagu waa 70 milyan Ethiopia waa ka sitira badanta waa 100 milyan weeye Ilaahay kugu dhaarshay ka war gabadha Soomaaliga ay masayraysa ay ka masayraysa naafutada yaa ilaalinaya ku kaaya kufsanaysa hadii kale meel cilaaba laga helaya ya waa ogeyd gabdhaha balad xaawo iyo ceel waaqiyo in lagu kufsanayay maxaan ku dhahay xuduude wiilalka ciliyaal raba inaad dhalashaan oo tiro badan iyo gabdho badan oo ciidan noqda oo caafimaadka ka shaqeeya oo ciriga dhul ka shaqeeya oo wadanka ilaaliya ma fahmaysaa xamdi xaaji aad iyo aad baa ku salaamaya qaali badane آمين أيان محمود إلهي أنا حفظه أنا قردن إلهي أنا حفظه وحي وهري وادلا يا لكن قبلها دلن يرada أنا شيء يا ويلش دلن يرada أنا قردن دلني الحمد لله عيالك واشقيا سوقي كلا قلة ما فهمت وأنا حنانينا وحول بواب برنا الحمد لله هذا الصومالي هذا يكون نقدنا وحبنا بيتريا 10 milyan oo aan isku duubnayn weeye Soomaali waliba Ilaahayow umada isku keen insha Allah waa isku duumayna gaajada horta isku kaaya diraysa iyo biyo la'aanta iyo roob la'aanta hadda waa fiicanahay deyntii waa nalaga cafiyay wiilashu shaqay noo helayaan gabdhuhu shaqay noo helayaan ciidanku maxaan ku dhahay lacag fiican bay noo qaadanayaan marka isguursataan gaajada dadka Soomaaliya joogaan la hadlaya isku kindiri jidhe de hadda isfurmaysaan baan u malaynaya markay gabadhu biilkeeda iyo ilmaha daawadiisa iyo wax walba iyo dahabkeeda loo gado wax ragoonaysa de waxa imaanaya dhaqaale badan baa soo galaya wadanka hadda waxa la 30 milyan lacag naloo dhigayay 30 sano lacag naloo dhigayay oo 2 bilyan ah baa Soomaaliya soo galaysa oo adduunyada kale la siin jiro deeq ah ma fahmaysaa marka waa helaysaan insha Allah taala markaas waxaan u malaynayaa gaaja isku kiindirmayso dhalinyarada hadda isguursataan waarigi hore waxa la dhigi jiray dhalinyarada gaajada isku didha moogta ya gaajada awal isku kiindiri jiray dhalinyarada Soomaaliya joogtooy gabdhaha Soomaaliya jooga walibana xamdi xaaji in lala guursado ma dhibto waa kuwa qurbaha jooga waxayna kibir baan nahayo waxayna qurbaha jooga mideeda kale maxaa ilma ka dhalaynaa kuwa qurbaha jooga ilmihii malaba la xanaanaynaye ilmihii ayaga iswada dilay dan maag hadda 3 baa isku dilay 3 wiil oo 20 jir oo qulqul xab badan baa isku dilay maalin dhaweeto halkan 2 wiil oo maxaan ku dhahay ta kaleeta lagu dilay daraadniid baa lagu dilay waa aragteen Mareykanka sida loogu laynayo wiilashii qaar xabsiga laga buuxiyay qurbaha horta ilma in lagu dhalo waaba dambiba beenidii ma sheegaye walibana wiilasha dhibaatada ku haysata halkan hadda aragto xabsiga ka buuxaan qaar alkuliistay noqdeen qaar waa islaayeen maxay qeyr Ilaahay ha keeno insha Allah taala aad iyo aad baan marka idin wada salaamaya fiidiyowgana gudbiya Ilaahay ha idin xafido waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad idinka wacyi gelinaya ha u saarinina al shaydaan waxaan ahayn habaara al shaydaan
caaya nacalad ku rida inkaara ilaahay ka magan gala ayaga weeye waxa dadka laynaya cid laysay oo kale ma jirto dani baan dilin cid kale aan dilin axmed uhuru baan dad qarxin ayagaa dadka qarxiya ayagaa dadka dila markii maxaan ku dhaha janaala laga baxshay bay dadka Soomaaliyeed ka argoosanayaan waa cadawga ummadda Soomaaliyeed waa gacan ku dhiiglayaal nacalad ilaahay ha ku dhacdo kuwaas ilaahay caradiisa kuwaas ha ku dhacdo saasaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo duceyna Soomaaliyeed mideeda kale waxaan leeyahay oo kula ballamaya mideeda kale wiilasha ciidanka ah nin aan naag qabin yuusa ciidan qoran oo ilma waa in sidii wiilkii maalintii dhaweyto wariyaha ahaa ee ciidanka ahaa ee ku dhintay awdheegle laba mataama waa inuu reebaa kii dhintaba caruurtiisana waa in la koriyaa oo dawladdu gacanta ku qabataa baan leeyahay wiilasha aan waxba dhalin oo naagta lahayn oo ilmaha aan ka tegin war waxba ha qoranina naag guursada horta ilma dhaldhaa nina ilma reebin oo gablana oo iska dhintay wax uu tarahiya ma jirto wiilasha dhalinyarada naaga wada guursada naagta uur la sidaad oga tagtaa oo wax noo bedelaan helna kaas markuu dhinto naagahan tiradii ka batay oo malaayiinta guursada oo Soomaaliya jooga قول حوق الدلكة عبد الدار علي هذه أدبا كو سلام يا ولالك قالي نيد عقن كو هولغلا كوش لغما هويو غيري كما عبصادان هذا مديدان
bal waxay dhibna badeen day al-shaydaan ilaahay masiiba idinku rid ilaahu naga qabo oo jabi al-shaydaan masiiba alla idinku rid maxay dhibna badeen inaan gumaysi waarin bay ku dagaalgalaan gobonnimo u dirirku aad iyo aad baa idiin salaamayaa soomaaliyey waxaa idin leeyahay ilaahay ha idin xafido saasaan isku ognahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idinku celcelinayaa ha buunbuuninina cadowga maxaan ku dhaha suuqa dhaqaalaha ha lagu uga caawiyo ciidanka dhaqaalaha lagu caawiyo mideeda kale annaga hadda hadduu coronavirusahan baxo maalin dhaweyto gabar baa ila hadlaysay waxay ii sheegaysay in ay maxaan ku dhaha la hadashay mas-uuliyiin maaliyadda maxaan ku dhaha macnihii mas-uuliyiinta maaliyadda ay la hadashay waxay ii sheegtay inay dhaheen maxaan ku dhaha akoon toos ah oo ciidamada oga furan bangiga maadaama ay dhaqaalihii naloo furay bangiga adduunka buu toos ula shaqaynayaa bangiga dowladda soomaaliya marka akoon gaaraha looga furi doonaa ciidamada qaranka qof walba $1 $100 10,000 wax alla wuxuu awoodo qof walba ilaahay intuu hanti siiyey uu awoodo uu ku shubayo markaas baan maxaan ku dhahay ku shubi doonaa akoonkaasna dawladda intay soo fariisato sheegi doonta lacag dambe la aruurinayo iyo wax dambe gacan lagu qaadayo iyo ma jiri doonto si toos ah akoonada adduunka baan ogaga shubaynaa imbeesaan ku shubaynaa imbeesa wax la dhaho amase waxa la dhaho swish toos baan taleefankeena oga diraynaa annagoo gurigayga joogna maadaama hadda aan bangiyadii adduunka uu bangigayagu uu ku xirnaan doono haddii alla idmo markaasaan dhaqaalaha toos ciidanka ugu shubaynaa ciidankayaga haddii ilaahay idmo ugu yaraan waa in 500 waa inuu dabluhu qaataa $500 waa inuu dabluhu qaataa sidoo hadduu naag leeyahay ugu yaraan $300 uu reerkiisa ugu dirsado 200na uu asagu wuxuu u baahbaahdo ugu samaysto marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa idiin salaamayaa dawladdeeduna lacag fiican bay helaysaa marka haddii alla idmo way ku filnaan doontaa ciidanka intaasi inka badanba way siinaysaa bilaha soo socda haddii alla idmo aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saasaa isku ognahay